kulankan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir maamulka degmada Daynile xubno ka socda dowladda Norway wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska xukuumadda Soomaaliya ayaa lagaga hadlay bilowga wejiga labaad ee dhismaha wadada laamiga ah dhex marta degmada Daynile wadadaasi oo dhismaheeda iska kaashanayaan dowladaha Soomaaliya iyo Norway. Dhismaha wadadan oo muhiim u ah isu socodka gobolka Banaadir gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ayaa waxaa kormeer ku sameeyay halka uu marayo dhismaha wadadaasi mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Axmed Xasan Iimaan, maamulka degmada Daynile wakiilo ka socday dowladda Norway ee dhismaha wadadaasi ku sameynaya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal oo soo gaaray magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Jacfar ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhismaha wadadaasi laamiga ee dhex marta degmada Daynile. waa mahadsan yihiin dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan oo ka soo qayb gashay maanta wadadan oo ay maanta tahay maalintii loo gudbi lahaa feeskeedii labaad phase 2 phase 1 kana noo dhamaaday. insha Allah waxaan rajaynayaa jidkan inuu socod doono gaarina doono meesha loogu talagalay ilaa iyo isbitaalka Daynile oo jidkan loo qorsheeyay. Cumar Cali Abdi gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Axmed Xasan Iimaan ayaa dhankooda boogaadiyay sida ay ku socoto dhismaha wadada laamiga ee dhex marta degmada Daynile iyo wejiga labaad ee dhismaha wadadaasi. halkan waxaan maanta u nimid inaan soo kormeerno shaqadii laamiga ka socotay oo hore fayskii koowaad fayskii labaadna aan ka tashanno. alxamdulilah shaqadii si fiican ay noogu soo dhamaatay phase 1kii gabagabay ku dhowdahay marka waxaan ka fikiraynaa fayskii labaad oo ah ilaa 8 kilomitir ee wadadan ahayd 2 kilomitir dhisan intii kale shaqadu joogsamay sidii u soconayay haddii alla idmo ilaa laga gaayo muxuu ahaa isbitaalka. marka waana arrintaas si fiican la isaga fakartay waxaan rajaynayaa inay si fiican u socon doonto si qurux badan faysas kalena imaan doono. waxaan u aragnaa shaqo dhiirigelin leh oo mudnaan gaar leh oo u baahan in lagu daysado. waxaa halkan yimaada injineero ka tirsan gobolka Banaadir oo markasta kormeera sida ay u socoto shaqada haddii ay hal lahayd drainage-ka loogu talagalay inay biyaha maraan iyo quality-ga dhismaha. intana waa mid aan aad ugu qanacnay inta aan soo aragnay. ugu dambeyntiina waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Gacal oo lagu soo dhaweeyay degmadaasi Daynile. waxaa maantay sharaf noo ah inaan kala soo qayb galno hawshan baaxadda leh sida fiican ku bilaabatay rajo badan u soo celisay deegaanka Daynile. waxaan bogaadinaynaa una mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo ugu horeeyaan dadka deegaankan oo gacan weyn ka geystay maamulka gobolka Banaadir hay'adda Nice Foundation dowladda Norway iyo dowladda federaalka oo aan dhihi karno muddo dheer oo la sugayay wadadan. Cabdicasiis Ibraahim Axmed TV Universal magaalada Muqdisho.